محمد عبد الله فرماجو iyo xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka qodobka koowaad ayaad uga bogan doontaan qodobka labaad ee barnaamijka waxaan ku iftiiminayaa محمد عبد الله فرماجو madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuu yiri Muqdisho markaan ku soo noqday waxaan arkay muddana aan la socday dhibaatada shacabka Muqdisho haysata oo ay qayb ka tahay sicir bararka iyo baahida ka jirta caasimadda wuxuu sheegay reerkii $100 biila jiray $500 in aynan ku filnayn dadka Soomaalida inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan hadii nasiib leeyihiin macnaha waxa uu leeyahay mararka qaar kood cagabar waliba ka daran in hadda ay ka daran tahay inaysan ku filnayn $200 oo kale $400 ama $500 inaysan ku filnayn macnaha mushaaraadkii wali inuu meeshii uu taagan yahay guud ahaan dadka Soomaalida inay gaareen heer ka jira waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo arrinta ku saabsan barnaamijka ayaad uga bogan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u adkaysan waayay shirkii golaha mustaqbalka Soomaaliya siyaasiyiinta samata bixinta madaxda Jubbaland iyo Puntland ay ku yeelan lahaayeen magaalada Kismaayo dawladda Kenya ayuu dacwad u gudbiyay wuxuuna Kenya ka codsaday in ay shirkaasi joojiso oo ay Axmed Madoobe la hadasho waa madaxweyne u adkaysan la shir la isugu yimaado oo kaliya haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinta qalqalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka qabo shirka samata bixinta madaxda Jubbaland iyo Puntland Kismaayo ka dhacay waxaan iftiimin doonaa sidoo kale dadaalka uu xasan sheekh maxamuud ku bixiyay sidoo u kala fogeyn lahaa siyaasad ahaan madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo mucaaradka samata bixinta Muqdisho fadhigoodu yahay ma taqaana sababta xasan sheekh muddo u diidanaa in xiriir siyaasadeed iyo isku soo dhawaasho ay yeeshaan madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo samata bixinta barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa hadduu alla idmo qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idiin sidaa waxaad iga daawanaysaa Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan muuqaalka hadduu ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like saarto siina share garayso waa haddaad igu siyaasad tahay haddaadan igu siyaasad ahayn waxaa muuqaalkaa share garayn soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan magaalada Muqdisho xalay casho sharaf ayuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ilaa iyo 13 bishan ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu u sameeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay marka koowaad waxyaabihii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalka wuxuu iftiimiyay arrimo dhowr ah oo xasaasi ah waxaa ka mid ah qaribka siyaasadeed ee dalka uu ku jiro dhinac walba muddo xileedku inuu dhamaaday 6 bilood ay ka harsan tahay waqtigu uu yahay mid aad u yar madaxdana waajibaadka saaran xilligan aynan u muuqan kuwa markaasi u gudanaya sida uu qabo dastuurka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la kulanka labada aqal ee baarlamaanka maxay ka turjumaysaa aan runta isku sheegno saaxiibaya siyaasiga hadba meesha uu wax ka bilaabo ayay ka turjumaysaa siyaasaddiisa iyo nuxurka ay leedahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaarad ayaa ka horeeyay oo Muqdisho ku sugnaa qaabka ay shirarka u qaban jireen iyo halka ay ka wajihi jireen siyaasiyiinta la kulankooda iyo ururada bulshada rayidka madaxweyne Farmaajo wuxuu maray wada aanan ahayn wadadii samata bixinta ay sameeyeen markii ugu horeysay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayuu qaabilayay la taliyaasha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo Sheekh Cali Wajiis ka mid yahay ayuu madaxweyne Farmaajo qaabilay wuxuu kaloo qaabilay xubno muhiim ah oo garbaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud u badan oo qaar kood codsaday inaan kaamirada laga duubin ama sawir aan laga qaadin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaladiisu kuma jiro sida aynu kaga baranay siyaasiyiinta mucaaradka hanjabaad goodin dagaal xabad iyo kala tag intaba sal kuma laha hadaladiisa waxa kaloo xusid mudan kulankii xalay siyaasiyiintii isugu yimid oo labada aqal ee baarlamaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma uusan u muujin wax la yiraahdo inuu qabo ciil siyaasadeed xanaaqsan yahay waliba uu damqanayo waxa kaloo ka muuqda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankiisa xalay inuu kalsooni badan ku qabo siyaasaddiisa doorashada nooc kasta noqoto haddii maanta la yiraahdo codka shacabka lagu kala baxaya inuunan dood ka qabin isla markaana uu diyaar u yahay in haddii la yiraahdo teendhada la aadayana uu diyaar u yahay
waxaa kaloo cajiiba sida ay ii sheegeen siyaasiyiintii labada aqal ee xalay tagay hoygiisa madaxweyne farmaajo xubnihii lagu yaqiinay teeramkii hore haba yaraatee midkood kalama joogo albaabada uu hadda furay siyaasadiisa hore waa ka duwan tahay haddii 4 qof ilaa 5 qof madaxweyne farmaajo uu wadan jiray hadda ummadii Soomaaliyeed oo dhan ayuu albaabada u furay taasna waxay ku sheegeen dadka arrimaha siyaasadda u dhunduleela iyo siyaasiyiintii xalay u tagayba inay fursad u tahay soo noqoshadiisa siyaasadeed sidoo kalena ay fursad u noqonayso in bulshada Soomaaliyeed ay mar kale hoggaankiisa ay dhadhamiyaan haddaba khudbadii uu jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laba arrimood ay ku saabsanayd guud ahaan marxaladda dalka siyaasadda iyo xaaladda bulshada iyo dhibaatada haysata shacabka waxaa xusid mudan inuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u damqanayo shacabkii caasimadda dad badan ay la yaabayo markaan leeyahay Farmaajo u damqanaya sababtoo ah waagii hore waxaynu baahi jirnay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sababay qaladaad aan waxba ka jirin waagii xilligii teeramkii uu joogay oo aan mucaarad ahayn anaa kamid ahaa dadkii dhaliili jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalladii afkayga ka bixi jiray maxaa ku jiray muqdisho ayuu ku kalifay gabdhaha Soomaaliyeed ee caasimadda degan reer ahaan ka soo jeeda hawiye inay wadooyinka ku dhalaan hal caday xitaa ma wadan markaas ya mucaaradkii waaga wali lama arag hooyo ku dhalaysa wadada xilligii Farmaajo laakiin maxaan aragnay maalmihii la soo dhaafay hooyo ku dhalaysa wadada dhexdeeda oo maqal iyo muuqaal annaguna waxaan dhihi jirnay wadooyinkay gabdhuhu ku dhalaan jidadkii baa xiran laakiin iyadoo maqal iyo muuqaal ayuu ilaahay qadaray inaynu hadda aragno dulmigii iyo durbaankii lagu kicinayay Farmaajo maanta waxaa ka dambeeyay inuu u damqanayo shacabka u sheegayo inuu la damqanayo dadka dhibaatadu ay haysato oo waliba uu sheegay madaxweynaha sicir bararka ka jira caasimadda ma beena ma run baan isu sheegaynaa mise qof jeclaysi iyo qabiil madaxweyne xasan sheekh baahi wata anaa ku sheegayo teeramkiisii horena dadka muqdisho baahi ayuu u sababay teeramkiisa dambana waa nuucii aynu ku naqiinay maalintuu yimid madaxtooyada bal arag dhulalkii caasimadda meeqa lagu kala iibsan jiray haddana waa imisa war baahi haddaad aragto waa damu jadiid waa baahi socoto waana sababtuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sheegay dadka muqdisho $100 kuwii biila jiray in aynan maanta ku filnayn $500 gaf ma aha aflagaada ma aha been ma aha wali lama arag xasan shiiqo madaxweyne ah iyo dadkii barwaaqaysano dhargsano baahi aynan jirin ma arkaysid damu jadiid waa NGO iyaga wax liqa laakiin waxba kama baxaan dowla tuskii xalay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu niyad jab ku yahay damicii iyo qorshihii madaxtooyada waxayna walwal badan ka qabaan qaabka ay u wajihi karaan siyaasadda Soomaaliya hadduu xaalku sidaasi ahaado bal falcelinta maanta ayaanu eegi doonaa iyo sida madaxtooyadu uga dhidhiso kulankii xalay wuxuuna ku soo dhamaaday jawi degan siyaasadaysan waliba ay shacabkii dib dambe u daawaday kulanka ay dhammaantoodba ka dhexdeen qorshaha madaxtooyada iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciyaartii siyaasadeed hadda inay bilaabatay wixii ku soo kordha isha ku hay Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Balwaan haddii page-kan aad barnaamijka ka weysana waxaad ka daawan kartaa YouTube-kayga Cabdullaahi Balwaan haddaad Facebook-ga daawanayso qaybta kore ee linkiska ayaan soo dhigay linkiga YouTube-kayga halka ku dhufo si aad u daawato barnaamijyada kale ee aad mar walba kala socoto Facebook page Cabdullaahi Balwaan iyo YouTube-ka si Cabdullaahi Balwaan insha Allah madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu dhibsaday u dulqaadan waayay shirkii mucaaradka madasha samata bixinta madaxda Jubbaland iyo Puntland ay ku yeelanayeen magaalada Kismaayo dacwad ayuu Kenya u gudbiyay wuxuu ka dacwoonayaa dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ajnabi ayuuna uga dacwoonaya wuxuu dawladda Kenya u gudbiyay dacwad ka dhan ah magaalada Kismaayo xarunta Jubbaland warmiyaynan Kismaayo Soomaaliya ka tirsanayn maxay tahay Kismaayo looga dacwoonayo Nairobi waa ceeb inteeda leeg waa foolxumo iyo taariikh xume madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu Kenya ka codsaday in dib loo dhigo shirkii golaha samata bixinta iyo Jubbaland iyo Puntland oo la isku yiraahdo golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ka dhici lahaa magaalada Kismaayo wuxuu ku dul ooyay madaxweynihii Kenya wuxuuna sheegay in uu diyaar u yahay wax waliba inuu saxo
dastuurkii baan sidiisii ka dhigayaa doorasho wada ogolaan diyaar la ahay waxaan idinka codsanayaa inaad ila riixdaan uunan dhicin shirka magaalada Kismaayo golaha mustaqbalka Soomaaliya ku qabsoomi doono hadduu alla idmo madaxweyne marka aan shir u adkaysan karin sida uu ajnabiga ugu calaacalayana aad ka yaabayso bal ka warrama haddii intuu u sheegay Kenya uu u sheegi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed sharaf iyo sumcad ay u ahaanayeen hadduu dhihi lahaa wax walbaan ka heshiinaynaa ajnabina ma ogaa lahayn ceebteennana maanta Kenya ma ogaa lahayn laakiin Kenya maanta waxay markhaati ka tahay madaxweyne Kismaayo uga dacwoonaya Nairobi calacalaya shirkaas hala joojiyo wax walibaan diyaar la ahay wax walba aniga qabanaya ana toosinaya ana wax walba saxaya dastuurkii hore lagu noqonaya la hadla hala joojiyo golaha mustaqbalka Soomaaliya inay Kismaayo kulan ku qabsadaan anigu wax walba diyaar u lahay talada Kenya waa u dhaga nuglahay hadda ka hor baad igala taliseen inaan joojiyo New Jubaland gobolka Gado waa joojiyay amarka Kenya qaatay aniga maanta ii hilaya dawladeedu waa burburaysa haddii Dani iyo Axmed Madoobe iyo Shariif Sheekh Axmed Khayre Maxamed Xuseen Rooble Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay isugu tagaan magaalada Kismaayo dawladeedii ka kacawaa waa fashilmaysa dawladeedu bal siduu u jilicsan yahay arag micnaha maxaa ku jira madaxweynuhu wuxuu u adkaysan waayay shir Kismaayo ka dhacay bal ka waran shirkaas haddii la ballaariyo oo meel walba ay shirar ka dhacaan wallahi madaxtooyadu ka cararaya been idin sheegi maayo dhab ahaashaha siyaasadda waa lagu kala adkaaday kullay in ummadda been loo sheego waxba soo kordhi mayso runta iyo xaqiiqda lagama tallaabsan karayo shir Kismaayo ka dhaca dhaawac siyaasadeed buu madaxtooyada ku yahay shir ay isugu yimaadaan madaxda Jubaland iyo Puntland iyo samata bixinta Xasan Sheekh Maxamuud shar ayuu u arkaa shar muddo ayuu kala ilaalinayay inay midoobaan siyaasad ahaan Axmed Madoobe iyo Dani iyo madaxda samata bixinta fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ma taqaanaa sababta wuxuu og yahay maalinta ay midoobaan in siyaasadiisu ay eber noqonayso mid ogaada haddii qaybo kamida maamul goboleedyada ay mucaarad kala saftaan dawladaasu si kastay u rafato marka ugu dambayso waa laga adkaanaya wuxuu og yahay wixii dhacay xilligii farmaajo maxay ku guuleysteen mucaaradka uu Shariif iyo Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ay ku jireen iyo Khayre maxay kaga guuleysteen farmaajo waxay heleen madaxda maamul goboleedyada qaar kamida haddii golaha wada tashiga qaran qayb lagala wareego barito qiil ku noqon mayso wada kastood marto inaad kaga adkaato siyaasiyada mucaaradka marka muddo kale ilaalinayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax walba ayuu u sameeyay in aynan mucaaradka iyo Dani iyo Axmed Madoobe isku soo dhawaan tusaale markuu Xasan Sheekh sameeyay maamulka waqooyi bari sidoo kalena uu gada ka sameeyay maamul la yiraahdo New Jubaland siyaasiyiinta mucaaradka Muqdisho wuxuu ku mashquuliyay balama been ah si aynan ugu hiilin Dani iyo Axmed Madoobe oo aynan u soo gudbin warbixino fashili kara qorshihii uu kala ahaa laascaanood iyo qorshihii uu kala ahaa Garbaharey waxa soo dhan muxuu u marayay hadday midoobaan siyaasad ahaan Jubaland iyo Puntland iyo madasha samata bixinta xaalku wuxuu noqonayaa jid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxba u dhaqaaqi maayaan hadda waa walwal laga qabo shirkii Kismaayo walwalka soo kordhay ee